waxa uu yiri tuhum baa ku dilay maan dadaal yarayn oo nin dabaashay uma xumi dalowgii la igu siray hadeer waan isdayno daw ciriiriyaan helay iskamana dafsiye dirqi baan ku agmariyaa markaasay dakaysaa hadal way isdaayaan digrigeeduna konton hoos ugama soo dago dawlad buu ilaahay igu diray jacaylko ma daadaadinayso duxda iyo jacaylkaba sida aad u jeedaan baddaawadayaal qamar sugaani ayaa seefta galka kala baxay waxa uuna iska difaacay hadalladii kulkulula ee ay ku soo tuurtay xaaskiisii hore ee Ogbaad Aragsan dagaal adag ayaa baraha bulshada ku dhex maraya saacadihii ama maalmihii ugu dambeeyay labada fanaan ahaana qoys Soomaaliyeed oo hore waa Ogbaad Aragsan iyo Qamar Sugaani Ogbaad Aragsan intaynu u gudbin daawadayaal barnaamijkeena fadlan hubi muuqaalkan inaad la egereysay waad ku mahadsantahay inaad qaybtii hore ee barnaamijkeena soo daawatay jawaabtii ama dagaalka ay soo qaaday Ogbaad Aragsan sidoo kalena qaybta labaad ee barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan wixii uu ku jawaabay Qamar Sugaani iyo sidoo kale anagoo idin turjumayna erayada ay labadani fanaan isdhaafsadeen Ogbaad Aragsan oo ahayd xaaska hore ee Qamar Sugaani ayaa dagaal toos ah waxa ay baraha bulshada kula galaysaa ninkeedii hore Qamar Sugaani iyadoo ninkeedii hore ku eedeynaysa inuusan ka qancin jirin dagaalka sariirta waa arrin cajiibkeeda wadata in xilligan social media dad Soomaaliyeed ama qoysas Soomaaliyeed oo kala tagay ay isku canjarafeeyaan waa arrin inagu aynu ka gaabsanayno balse waxaan idin soo tabinay wixii dhexmarayay labadaas fanaan hadalladii kulkulula ee hawada isku marinayeen Qamar Sugaani ayaa markan galka seefta kala baxay waxa uu cadeeyay in uu ceel dhex galay ama uu dhex dabaashay badweyn uusan tabarteedana haynin wax lagu eedeeyana aysan ahayn inuusan ka xumayn ama u xumayn in arintaasi ay ku eedeyso Ogbaad Aragsan ayuu si xun u bahdilay waxa uu ku sheegay inay barkad tahay ama sidoo kale ay tahay waasto ama ceel ay tahay oo uu qodi waayay tabartiisana ay dhaaftay waxa uu Ogbaad Aragsan ugu hambaliyay inay heshay ninkii ku haboonaa in ay heshay ayuu ugu hambaliyay halka Ogbaad Aragsan dagaalkii ama fariintii hore ay u soo dirtay Qamar Sugaani ay ku sheegtay in Qamar Sugaani uu yahay wax martay dhanka ciyaarta sariirta ah oo uu ku fashilmi jiray sidoo kalena ay iminka haysato nin ay ilaa 6 aroornimo ay isla dakeeyaan oo ay 6 aroornimo dhaamiso sidoo kalena inuu ninkaasi ay wato ay sheegtay dawliskana waa taqaanaan waa wadaanta ceelasha dheer lagu darsado oo biyaha looga soo darsado waxa ay sheegtay in ninkeedu uu marakan tiira dheer yahay oo uu ma taqaanayo ciyaarta sariirta uu aad ugu wanaagsan yahay Qamar Sugaani oo arintaasi u adkeysan waayay fadeexadaasna iska difaacaya ayaa hadda degdeg ku soo jawaabay waxa uu cadeeyay inuu hees si xun u karbaashi doona fanaanada Ogbaad Aragsan war wiilka iyo gabadha maad kala dhex gashaan Soomaali Maxamedey waa su'aal idin taale commentiga ayaad uga jawaabi doontaan hadaba daawadayaal aynu isla eegno Qamar Sugaani oo cabanaya sidoo kalena sheegay inuu isagu uu ahaa nin dhalinyaro ah oo arintani ay ka tanweynaatay oo sidoo kalena dhex dabaashay ceel kamid ah ceelasha Soomaaliya ama ceelasha maamul goboleedka Somaliland Qamar Sugaani ayaa yiri tuhum baa ku dilay maan dadaal yarayn oo nin dabaashay uma xumi dalowgii la igu siray hadeer waan isdayno daw ciriiriyaan helay iskamana dafsiye dirqi baan ku agmariyaa markaasay dakaysaa hadal way isdaayeen digrigeeduna konton hoos ugama soo dago dawlad buu ilaahay igu diray jacaylko ma daadaadinayso duxda iyo jacaylkaba haddii aan daawadayaal aynu istaagno ama qodob aynu u istaagno heestan cajiibka ah ee uu Qamar Sugaani isaga difaacay Ogbaad Aragsan xaaskiisii hore oo dagaal cidiyaha ay kula dagaalamayso ku soo qaaday ayaa waxa ay tahay tuhum baa ku dilay maan dadaal yarayno tuhum baa ku dilay oo adiga iga tuhum badnaa oo iga shakinayay ma ahayn maan dadaal yarayn oo intii tabartayda ahayd waan dadaaliyay intii tabartayda ahayd waxaan isla ceelkaas qod laakiin si nin dabaashay uma xumi nin badweyn dhex galay oo ku haftay uma xumi oo baaf ama barkad ayaa dhar ku dhaqday ayuu leeyahay dalowgii la igu siray hadeer waan isdaynay dalow hadaa taqaanaan waa meel bohol ah oo biyaha laga dhaansado geeljiraha ayaa aad u yaqaana waa ceelasha hoos u qadan dalowgii la igu siray uu yiri hadeer waan isdaynay oo hadeer waanu kala dhaqaaqnay oo hadeer islama aynu joogno ayuu leeyahay Qamar Sugaani daw ciriiriyaan helay waxaan helay uu yiri tog ciriiri ah oo ma taqaanaay isla eg oo aan iskamana dafsiyo hal marna kulama gariiro oo hal mar ma taqaanaay daakum kagama dhigo ee dirqi baan ku agmarsiya markaasay dakaysaa markaasayna xaaskaygu ma taqaanaay si fiican u dakaysaa xaaskiisu waa Nasiim Sooraan oo ay dhawaan isguursadeen hadalna way isdaayaan digrigeeduna konton hoos ugama soo dago xawaaraheeduna konton kama soo dago
hadalna ju way aamusta xaaskaygu marka ay hawshu socoto waa arrin fadeexad ah oo qamar sugaan ku ceebeynayo xaaskiisa ama uu nooga sheekeynayo ciyaarta sariirta isaga iyo xaaskiisa waxa dhex mara dawlad buu ilaahay ugu daray jacaylko ma daadaadinayso duxda iyo jacaylkaba dawlad qof nidaam maamul leh system leh baa ilaahay ugu daray jacaylkii mana daadaadinayso duxda iyo jacaylkaba duxdana dee waa taqaanaan waa ciyaarta sariirtu marka ay natiijadeedu soo dhamaato waxa ka yimaada lamaanahaasi is dhex maraya labada lamaanahaasi isqaba waxa ka yimaada waa duxda iyo jacaylka barihii bulshada Soomaaliyeed ayaa halkaas gaaraya maraya waa Star War baa la dhahaa ku ambanina aniguna waxaan idin xaqiijinayaa in aad idin soo tamin doono waxa ma taqaanay dhex mara labadaasi fanaan oo hadda baraha bulshada si dagaal adag ku dhex marayo iskuna rifaya nabti waa arrin murugadeeda wadata in qoysas Soomaaliyeed ay xilligan xasaasiga ah oo dalkuna xaalad kala guur ah oo doorasho ku jira sidoo kalena uu xiran yahay Cabdimalik Muuse Coldoon sidoo kalena Taliban ay qabsadeen Afghanistan in qoysas Soomaaliyeed ay 21 sano ka bacdi dib isugu soo laabtaan oo qoysas Soomaaliyeed oo kala tagay ay ma taqaanaayeen ay ka sheekayaan dagaalkii sariirta ku dhex mari jiray waxay maraysaa maanta barihii bulshadu inay dhahaan adaa ceel watay iyo adiga wax matara aha iyo adaa biriq watay dumarka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka feejignaadaan arrimahan xasaasiga ah ama ragga Soomaaliyeed ee kala tagay waayo meherada badan ayaa soo istaarmi doona hadii ay qamar sugaani iyo ogbaad aragsan sidaas ku sii wadaan waxaynu arki doonaa saacadaha soo aadan islaam badan oo leh ninkayga dawlis buusitay iyo niman badan oo leeyahay waxay ahaayeen biriqyaal iska bilada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska ilaaliyaan dadka ay guursanayaan dumarka Soomaaliyeed ayaan la hadlayaa iyo sidoo kale ragga Soomaaliyeed iska bilada ah ogbaad aragsan hadda waxa ku dhacday dibir aad u weyn maadaama la sheegay inay dalow weyn wadato sidoo kalena ay tahay islaan ma taqaanaayay bad ah oo sidoo kale dalow ana ay wadato qamar sugaanina waxa uu cadeeyay inuu dadaalay waxna ka tari waayay oo nin dabaashay uu san u xumeyn waligeedna wala arki jiray ayuu yiri nin dabaashay oo bad dhex galay oo ma taqaanay haftay marka Soomaali Maxamed ay wuxuu leeyahay yaan la ugu digan waan dabaashay ogbaad aragsan waa dalow way wadataa buu yiri ogbaad aragsan waxay haysay ninkii ku sama ama ninkii ku fiicnaa ayay heshay wuuna ugu hambaleeyay wuxuu yiri hadii aad dalow heshay dalow nin si tahada heshay adiguna aad bad ahayd de Ilaahay isku keen barakeeyo ayuu taagan yahay qamar sugaani daawadayaal barnaamijkan mutaxana ayuu inoo ahaan doonaa muuqaalkan hubi inaad la garaysay una share garaysay asxaabtaada ku mahadsanid